أنا وحكسو برتوش يقاجو إن حقوقنا waxaan ka codsanay ummadda Soomaaliyeed in badan oo inaga mid waxaynu ku mashquulnay xisaabinta iyo ka hadalka natiijadii liidatay ee ardaydii ku dhacday imtixaankii dugsiyada sare ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir balse qisada wiilkan yar ayaa noqonaysa mid taabanaysa qalbiga qof walba su-aasha milyanka doolarku kacaysa ayaa waxa ay tahay sidee ay ku dhacdeen xilligan wiil xoolo raaca ah lana daalaadhacaya duruufaha nolosha uu kaalimaha ugu sarreeya ka soo galay imtixaanka shahaadiga ah ee dhammaan ardayda Soomaaliyeed waa samaxay fariinta uu diray wiilkan fariidka ah ee leh rajada iyo mustaqbalka ifaya inta aanan sheekadiisa gudagelin waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto si fariinta wiilkan ay qof walba u gaarto una sheer garay asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale qisooyinka guulaha ee nolosha marka loo eego halka ugu sarreysa ma saarna kuwa nolosha ku raaxaystay taagsigeeda waa inaad ka soo gudubto marxaladaha adag si aad u guulaysato wiilka qisadan ay taabanayso waa Qaasim Salaad Gabood waxa uu ku nool yahay Garbaharre waa mid ka mid ah ardaydii uu cadaraha dhigtay ee ka soo jeeda Garbaharre kuna noolaa Kaamyar oo qiyaas ahaan magaalada u jira 1 kiiloomitir iyo bar sida aan ka soo xigtay muuqaal baahiyaha Shabeelle TV wiilkan wuxuu ka soo jeedaa qoys danyar ah waxaana habeenkii uu dhaxsadaa hoygan cooshadaha ka samaysan si maalinle ah waxa uu la dagaalamaa duruufaha nolosha xilli uu maalinka barkiis ariga raaco qaybta kalena waxbarashada aado balse nasiib wanaag waa uu guuleystay waxaana uu qayb ka yahay 100 arday ugu wanaagsan guud ahaan Soomaaliya marka loo fiiriyo ardayda asaagiisa ah ee ka qayb galay imtixaankii dugsiyada sare ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir أنا وحكسو برتوش يقاجو إن حقوقنا waxaan ka codsanay ummadda Soomaaliyeed taas anigoo saas daraaddeed waxaan ku soo bartay dhibkaan iyo intaan daruuri aan ku soo bartay aniga ahaan uma baahnin aan maanta ka hadlo kuwii la sheegay in imtixaanka ku dhaceen sabab walba ha jirto balse aynu markan kursi dahabi ah halka sare u saarno wiilka yar ee dadaalka saaxiibka u ah isla markaana ka soo ifay mid ka mid ah guryaha Garbaharre أنا وحكسو برتوش يقاجو إن حقوقنا waxaan ka codsanay ummadda Soomaaliyeed taas anigoo saas daraaddeed waxaan ku soo bartay dhibkaan iyo intaan daruuri aan ku soo bartay taasoo waliba iskuulka iyo xaafad u dhaxaysa bohol weyn oo keentay biyo xilliga roobka taasoo aanin juhud u gelin inaan waxbarashada ka haro aniga ahaan aad ayaan u jeclahay kuwa dadaalka badan kumana sii jirto marka ay guud ahaan qalbiyadeenu arkaan qof nolol adag ku jira oo ka heer wanaagsan dhalinyaro badan oo ku jira nolosha tan ugu wanaagsan kuna nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo magaalooyinka horumarsan hadaladiisa waxaa ka mid ahaa inay noloshu tahay mid adag marka laga cabir qaato qoyskiisa oo danyar ah oo aan waxba haysan habeenkiina uu ka soo kaco guriga isagoo aan ogeyn sida ay maalintiisu noqon doonto waxaa dheeraad u ahaa in maalin walba uu ku dadaali jiray sidii uu ariga ay cid u leedahay uu u daaqsan geelin lahaa mushkiladda maalin walba xalka uga baahneedna waxay ahayd halkii loo mari lahaa goobta daaqa leh sabab la xiriirta togaha dhaadheer ee goobta ay degan yihiin oo magaalada ka fog iyo biyaha ay soo rogaan oo hareeraha gurigiisa ka dhiga goob ay biyuhu aad u fariistaan mushkiladda ayaana ah sidee ayuu biyaha kaga tallaabi karaa ku aadi karaa gurigiisa mar kalena waa sidee isaga iyo arigiisa ay uga badbaadi karaan in biyaha ay ku dhibaatoodaan 1 kiiloomitir oo u dhaxaysa iskuulka iyo xaafadda aan deganay ama aan ku noolay waxaan la noolay waalidiintay taasoo waliba iskuulka iyo xaafad u dhaxaysa bohol weyn oo keentay biyo xilliga roobka taasoo
taasoo aniin juhdi u gelin inaan waxbarashada ka haro mar walba waxaan isku dayay inaan ka gudbo bohosh taasoo aniin hore juhdigaas waxaan u bixinay inaan waxbarto oo heerkan jaamacad hadda gaaro taasoo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan haddana heerkan soo gaaro oon ka midna 100 qof oo wareeg Soomaali in badan qatarta sida oo kale bohosh aniga waxaan iskana oo nin yar gaaban oo bohosh biyo aad bay banday atan bohosh malahan hooga yar bunto biyo fiican ka gudbi kadmilaan hadana bohosh dhiiqo badan aniga hadana kobahayga dhiiqadan yar isku kala aad jiray taas oo si aan wax barto aan xiligan aan soo gaaray inaan isku kala qalin jiba hadana dibkaas ayaan ku soo mar jiray xaafadan kobo buud hadan soo herto kobahii togi oo biyo wada la imaan biyo hadii ka gudbays dhiiqo iyo khatar iyo waxaan uniform ka yar dhiiqo gaaro taas ka mid noqotay inaan heerkan ka soo gaaro hadana dibkaas aan soo mariyay sheekadiisa waxaa ku jirta in habeenkii uusan waxba aqrin karin marmarka qaar sabab la xiriirta korontada ama leer la'aan darteeda maadaama galabka uu aqrin lahaa uu ku soo daahayo qabashada shaqadiisa maalinlaha ah ee ari raacidda iyo inay macquul tahay inuu joojiyo waxbarashadiisa haddii uusan garab weyn helin maadaama qoyskiisa ay adag tahay inay jaamacadda la tacaalaan deegaankiisana aysan jaamacadda ku oolin kaamka jooga baabur ay raajay laakiin aniga ma awoodi inaan karaac baabur saas oo daadada macallimiinta waxay dhigi jireen maxaa u soo daadan anigana waxaan ku xaafadda la iskuul waxaan ku jiray lugtay taasoo aan juhdi gelin si aan wax u barto hadana aniga gelinkii hore saas baa taas aday u dhaay gelinkii dambena hadii xaafadda imaado waxaan raacaa arigi oo ka horbaa si aan u soo wareejiyo kadib markaan soo laabto xaafadda inaan haddana casharka waraajeystaan rabaa markaan soo laabtana ma jirto meel aan ku akhristo casharka waxaan rabaa in sidaan isa ka fiican dowladda waxay qobato oo aan hore waxbarashada u sii wato aniga waxaan ugu dambeyn dareenkooda ay cabireen waalidka dhal wiilkan waxaana ay qireen in dadaalka wiilkooda uu lagu kabay ducadooda ay soo daahirtay yeelkeedee miyaysan ahayn in muuqaalkan aad sheergarayso aad gaarsiiso qof walba oo wiilkan caawinaad u fidin kara laagna saar muuqaalkan si aad inoogu dhiirigeliso in warbixinada noocaani oo kale ah aan soo badino magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho aad iyo aad ugu mahadsan tahay la socodkaaga mar walba